kadib markii maanta golaha guurtida Soomaaliland ay muddaxileedka muddo 2 sano ay u kordhiyeen xildhibaanada golaha wakiilada ayaa waxa muddo kordhintaasi qaadacay labada xisbi ee u ciidiyo wadani. Haddaba gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga talada Soomaaliland Haye Kulmiye Axmed Cabdi Dheere ayaa arintaasi ka hadlay waxaanu sheegay gudoomiyuhu in sababta muddo kordhintani keentay ay sabab u yihiin xisbiyada mucaaradku isagoon carabka ku adkeeyay xisbiga mucaaradka ee wadani. Axmed Cabdi Dheere oo arrimahani ka hadlaya waxa uu yiri aragtaa iyo siday noqonaysaa midna maaha waa sharci waa hay'adii dalka ugu sareysay waa anagu haddaanu nahay xisbiga Kulmiye waxay guurtu tiraahdo waa ku dhaqmanaa waanaanu taageersanahay doorashooyinka inoo dhici lahaa ee golaha deegaanka iyo kuwa baarlamaanka labadaba waxay ka qabsoomi waayeen maaha baarlamaanka iyo guurtida maaha kordhisay haddaanu xisbiyadana anaga halkaas la soo gaadhnay waqtigii aanu qabsan lahayn aan guurtina soo farageliseen baarlamaanna soo farageliyeen anaga haddaanu nahay xisbiyada gaar ahaan xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa halkaas soo gaarsiiyay maalin aynu commission ka murano iyo maalin aynu hebel ka murano 2 sanadood bay naga qaadatay waxa ku simay inay guurtidu kordhiso waqtigaas soo gaadho faakiyumna gali mayso baarlamaanku gali maayaan waa in loo kordhiyaa hadday waqtigoodii gaadho marka muddadii aanu haysanay haddaanu xisbiyada nahay murankaygii baa maantana waa maalintii guurtida bay ahayd waana loo kordhiyey ta kale doorashadii haddaanu xisbigan Kulmiye nahay anagu diyaar baanu nahay maantadan laftigeeda waqtigay ku dhacayso doorashadu waxay ku xidhan tahay 2 sanadood maaha 3 xisbi oo heshiiye bay ku xidhan tahay doorashadu siday u dhici lahayd oo la shaqeeyo commissionka doorashaduna waqtigooda qabsoonaysa guurtidu waa guurtideeni waa odayaasheeni Britain loo tagaaba la oran karaa waqtiga oo commissionku sheego waqtigu ku qabanayo doorashada ayaa waqtiga lagu saleyn karaa waxay naga diidayaan male imikana waxaan oran lahaa ku soo noqda haydaabka doorashada ay noo dhacdo dad badan bayna sugaya oo doonaya inay doorashadu dhacdo adeer marka taageerayaal marka laga hadlo Soomaaliland shacabka reer Soomaaliland waxay taageersan yihiin ugu badan waxay taageersan yihiin xukuumadda doorashooyin baa la galay oo taageero cid ka taageero badan xisbiga Kulmiye ma jirto waxaynu ka hadlaynaa wax sharci waxaanu sharci ma yihiin mise maaha sharciyad baan ku fadhinaa sharciyada aynu ku fadhino nin ka gudbi karaana ma jiro midi ku taagna maahay maantaanu leenahay war doorashadii u diyaar garooba haddaad tihiin xisbiyada mucaaradka Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen Universal TV Hargeysa.